saxaabiga Khalid bin Walid bin Mughira al-Maqsumi asalkiisu waxa uu ahaa Carab qabiilka Maqsumi ee ka soo jeeda Quraysh waxa uu ahaa dagaalyahan fardaful iyo hogaamiye islaami ah kana mid ahaa asxaabtii rasuulka nabadgeliyo iyo naxariis korkiisa ahaatee Khalid waxa uu ahaa geesi caan ah oo aanu wadnihiisa galowda aqoon Khalid bin Walid waxa uu dhashay taariikhdu markay ahayd 584 miilaadiyada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa ku naanaysay sayfullaahi al-masluul waxa uu ka dagaalamay dhulka Shaam Ruum Faris iyo meelo kale oo badan waxa uu furtay dhulalka Ciraaq iyo Shaam waxaana ka qayb galay dagaalo badan sida dagaalkii muslimiinta iyo Roomaanka tirada muslimiinta ee dagaalkaas waxay ahayd 3,000 oo qof xagga ciidanka Roomaanku ay kor u dhaafayeen 300,000 oo ciidan ah 100,000 oo ka mid ah waxay ahaayeen carabtii soo raacday intii ay wadada soo socdeen xilalka uu qabtay Khalid bin Walid waxa ka mid ahaa taliyaha qaybta Najd iyo Yamaama sanadihii 632 ilaa 66 taliyaha sare ee ciidamada muslimiinta Syria sanadihii 634 ilaa 66 taliyaha qaybta gudaha waqooyiga Syria sanadihii 636 ilaa 68 dagaalo badan ayuu ka qayb galay waxaana ka mid ahaa dagaalkii Uhud dagaalkii Mu'ata dagaalkii Hunayn dagaalkii Ridda dagaalkii Busaqa iyo dagaalkii Aqraba Khalid bin Walid waxa uu ku dhashay magaalada Makka ee karaamaysan aabihii Walid bin Mughira waxa uu ka mid ahaa odayaashii qabiilada bin Maqsum Khalid bin Walid waxa la dhashay 6 wiil iyo 2 gabdhood waxa uu ahaa geesi muslim ah kaasoo ahaa mid ku dagaalama gacantiisa iyo seeftiisa caruurta uu dhalay Khalid bin Walid waxa ka mid ahaa Abdurrahmaan bin Khalid Muhaajir bin Khalid iyo Suleymaan bin Khalid Khalid guud ahaan taariikhayaanadu waxay u tixgeliyaan inuu yahay mid ka mid ah halgamiyaashii ugu caansanaa taariikhda islaamka isla markaana soo shaqeeyay waxaana ilaa maanta laga xusaa dunida carabta iyo guud ahaan caalamka dhaqanka islaamka ayaa Khalid ku maamusay xeeladiisii dagaalka iyo hogaamintiisii hufnayd ugu dambeyntii Allah ka raali noqday waxa uu sanadkii 642 ku dhintay oo lagu duugay magaalada Ximis ee waddanka Suuriya